isbahaysiga labada xisbi mucaarada ee u ciidiya wadani ayaa munaasabad ballaaran oo soo dhaweyn ah u sameeyay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdirasaaq Khaliif waxaana munaasabadaasi ay ahayd qada sharaf iyo hambaliyeen ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay Cabdirasaaq Khaliif gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo u mahad celiyay soo dhaweyntan ay u sameeyeen labada xisbi mucaarad ee wadani iyo wicid waxaan weydiisanaynaa madaxda axsaabta qaranka iyo madaxweynaha iyo xukuumaddiisu inay golaha kala shaqeeyaan inuu sidii uu gudan lahaa xilalkiisa iyo waajibaadkiisa haddii ilaahay idmo waxaanu ballan qaadaynaa gol ahaan inuu noqon doono golahani golo dhammaystira golayaasha kale ee qaranka ee dalku leeyahay ayna aanuna ku dadaali doono sidii aanu isugu wadi lahayn dadka aad iyo aad baad u mahadsantihiin Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wicid ayaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay guushan maanta waa guul Soomaaliya soo hoyatay guul soo hoyatay waa dalkeena wanaagiisa weeyaan cid gaar u ah guushan ma jirto waa guul national waxaana aad ugu mahadnaqaynaa aan ugu bishaarayna dadkii codka bixiyay inay si ku bixiyeen niyadoodii shirgudoonkiina si ku dhamaaday ayaa ilaahay oonay ka hawaabin xildhibaanadii la soo doortay wixii loo doortay ee lagu codeeyay inuu shirgudoonkiina wadadii maray ilaahay maadway subxaanahu wa ta'ala waxaan jecelahay insha Allah ta'ala inuu waqtigan wax ka badan isku helo laakiin hadda waxaan leenahay hambaliyana intii ka shaqeysay suurtagalka in maanta fadhiga suurtagalo oo caadadii ahayd Soomaaliland gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro ayaa isna munaasabadaasi ka hadlay waxaana uu hambaliyo u diray gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo halkaasi ka soo jeediyay hadallo soo dhaweyn waxaan u baahanahay baarlamaan iyo xukuumad isjeegareeya oo istabagala marka baarlamaankani sida idinku codka ku siiseen wuxuu noqon doonaa mid waajibaadkiisa guta haddii ilaahay yiraahdo waxaan hambaliyaynayaa dhammaan xildhibaanada cusub ee maanta la dhaariyey dhammaan xildhibaanada waan u mahadnaqayaa ilaahay Soomaaliland guushaasi Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha midowdo geesta kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin iyo siyaasiyiin ka soo qayb galay madashaasi qada sharafta loogu sameeyay gudoomiyaha cusub ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xubnihii kale ee la soo baxay geesta kale xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ee uga soo baxay labada xisbi mucaarad ee u ciidiya wadani ayaa hambalyeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo laamaha kala duwan ee dawladda doorkii muhiimka lahayd ee ka qaateen qabsoomidda shirgudoonka golaha wakiilada iyo guusha ay Soomaaliland ay ka soo gaadhay maanta shirgudoonka golaha wakiilada isla markaasina lagu doortay gudoomiyaha iyo mas'uuliyiinta kale ee golahaasi waxa kale oo hambalyeynaya gudoomiyihii guurta Saleebaan iyo gudoomiyaha maxkamadda oo maanta arrinka markii la isku yar ciiray meel adag iska taagay kadibna arrinka halkiisii waafajiyay waxaan oo kale qarankeena dhanba maanta guuleystay guul baynu gaadhnay cid ma jirto cid guul daraysatay cid guuleysatay laakiin waynu wada guuleysanay sharaf iyo karaama dhacday dimuqraadiyaddii baynu ku hana qaaday maanta qofka ka warbixinaya Soomaaliland dimuqraadiyadeedu wuxuu bixin karaa warbixin caalami oo fiican oo wanaagsan oo dimuqraadiya oo qurux badan oo si wanaagsan u dhacday runtii xoogaa buuq iyo campaign-ka way iska leedahay doorashada xanafta leh hadda waa ka wada baxnay 22 xildhibaanba waxna ka sugaya shaqo aad u adag waxaan doonayaa marka hore in halkan Ilaahay uga mahadnaqo subxaanahu wa ta'ala noo suurtageliyay guulaha istaba socda iyo marka labaadna waxaan u mahadnaqayaa shacabka reer Soomaaliland waxa kale oo halkan ugu mahad celinayaa mahad Ilaahay ka sokow shacabkii noo codeeyay na siiyay kalsoonidooda in aan ku metelno golaha wakiilada waxaan san hore u ballan qaadayna in aan u shaqeyn doono aan danahooda ka shaqeyn doono ugu horeyn Ilaahay baa mahad alxamdulillah rabbil caalamiin dareenkaygu runtii waa dareen aad wanaagsan waa dareen waxaan la qabaa dadka reer Soomaaliland runtii maanta farxadda iyo dabaashaadka ku jira doorashada runtii si wanaagsan bay noogu dhacday maanta xildhibaanadu fadhiga ugu horeeyay bay yeesheen xildhibaanada cusub ee golaha wakiilada la doortay maanta waa la dhaariyay shaqadii ugu horeysay waanu qabanay oo ah inaanu shirgudoonkii maanta dooranno runtii
si wanaagsan baanay arrintaas u dhacday marka dareenkayga runtii maanta aad iyo aad buu wanaagsan yahay runtii shaqo weyn baa noo taalla runtii waxa weeye shaqada ay ummaddu noo dooratay ee aanu qaranka u hayno runtii waa shaqo waxa weeyaan runtii ma garanaysaa nala ka filayaa inaanu dee waajibkayga ka soo baxno xamse qurbaani warbaahinta qaranka Somaliland Hargeysa